nin iyo naag oo xaddul ishtiha gaaray ajnebi kale ah oo wax u dhexeeya aysan jirin ayaa jirkoodii istaabtay. taabashada jirkooda uu istaabtay waa naaqid min nawaaqid ulwudu, waa waxyaalaha weysaqaadka burinaya, waa qeybtii saddexaad oo weysadu ay ka buraysay. maxaa yeelay waxaa imaamu shaafici raximah اllahu tacaala uu deliishaday qowlka ilaahay aw laamastum الnisaa, aw laamastum الnisaa, dumarka haddii aad taabataan ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yidhi weysadiinnu waa burtay. marka lamsigaasna imaamu shaafici wuxuu ku fasiray in loola jeedo aljasu bilyad, waa taabasho gacanta lagu taabto ayaa imaamu shaafici ku fasiray, isagoo marka imaamu shaafici ku raacay tafsiirkii cumar bnu اlkhadaab. sayidina cumar bnu اlkhadaab isagana aayadda aw laamastum الnisaa wuxuu ku fasiray in loola jeedo aljasu bilyad, in gacanta lagu taabto, gacanta in lagu taabto. haddii nin iyo naag kale ajnebi ah ay istaabtaan weysadii sidaasay ku burtay. waxaa kaloo aayadda sidaa ku fasiray cabdullaahi bnu mascuud, waxaa kaloo aayadda sidaas ku fasiray cabdullaahi bnu cumar. asxaabtaas waxay intooda badan ay ku fasireen aayadda in loola jeedo gacan ku taabasho in loola jeedo, aljasu bilyad in loola jeedo. walidaalika xadiiskan dhahaya oo yacni nebiga salى اllahu عalayhi wasalam kaana yuqabilu bacda nisaa'ih, nebiga calayhi الsalaatu wasalaam dumarkiisa qaybo ka miduhu soo dhunkoon jiray, waana tukan jiray, walaa yatawada, mana weyse qaadan jirin rasuulku salى اllahu عalayhi wasalam, oo intuu dumarka qayb ka mida dhunkoodo ثuma kharaja ilى الsalaati walaa yatawada, salaaddu isaga bixi jiray, mana weyse qaadan jirin rasuulku salى اllahu عalayه wasalam. xadiiskaas dhahaya xadiiskaasi waa xadiis daciifa, bukhaari ayaa daciifiyey. imaamu الbukhaari sida tirmidi uu sheegay, imaamu tirmidi sida uu ku sheegay sunankiisa, imaamu الbukhaariya xadiiskaas daciifiyeyo xadiisku xadiis loo deliishan karo haweenka iyo ragga kale ajnebiga ah inaysan weyse iska jebin karin looma deliishan karo, oo wuxuu yidhi bukhaari xadiiskaas ma sugna oo waa xadiis daciifa. walidaalika xadiis xoog leh, hal xadiisoo xoog leh oo loo hayo nin iyo naag kale ajnebiya inaysan weysada iska jebinaynin, xadiis ku soo arooray oo saxiixoo maba jiroba. hadduu xadiis saxiixa ku soo aroori lahaana haddee maba khilaafeenba imaamu shaafici iyo sayidina cumar bnu اlkhadaab iyo cabdullaahi bnu mascuud iyo cabdullaahi bnu cumar, maba aysan khilaafeen haddii xadiis saxiixu uu jiri lahaa. sidaas awgeed mar walbaba waxaa wanaagsan qofka marba haddii haweenka ajnebi ah, marba haddii iyo nin ajnebi ay istaabtaan inuu qofku weyse qaato, mar walbaba waa waajib. weyse qaadka inuu sameeyo waajib wey. adiga maxaa salaadaadaba khilaaf geliyey? salaadaada maxaa khilaaf geliyey? haddaad tidhaaho madaahibta isku khilaafsan oo abi xaniife iyaa qaba iyo cabdullaahi bnu cabaas iyaa qaba inaysan ragga iyo haweenka kale ajnebiga wax kala jebinaynin, salaadaadii markaas waxay noqonee salaad laysku haysto oo laysku khilaafsan yahay, ayaad aakhire la istaagaya ilaahay hortiisa. laakiin haddaad iska weyse qaadato cid salaadaadii wax ka sheegaysahay ma jirto, oo ilaahay waxaad la hor istaagtay salaad laysku waafaqsan yahay inay saxiix tahay. adiga marka labadaa mid kala dooro, salaad laysku haysto inaad ilaahay hortiisa la istaagto, iyo salaad cidna aysan waxba ka sheegaynin inaad ilaahay hortiisa la istaagto oo laysku waafaqsan yahay inay saxiix tahay. labadaa dariiq middii kuu roon dooro. midda roonna way cadda, midda roonna way caddahayoo qof walboo caqlile uu qaadanayo oo uu dooranayo. waa alkhuruuj min alkhilaaf mustaxabun, mar walbaba khilaafka in laga baxo way wanaagsan tahay. adiga maxram waxaa ku noqonaya baabu nawaaqid ulwudu marka la joogo, waa qof gabar nikaaxeedu uu xaaraan kaa yahay cala ta'biid, weligaaba aadan nikaaxsan karin, taasaa maxram ah. wixii ka soo haray weysada waa kaa jebinaya. maxram maxaa la yidhaha man xaruma nikaaxuhaa cala ta'biid, gabar guurkeedu uusan kuu bannaanayn weligeed, oo maalan sida habaryaraha iyo walaalaha iyo eedayaalka iyo ayeyaal iyo hooyayaal iyo waxaasoo dhana maxram la yidhaha. kuwaas marka oo ta'biid ebedba uusan maaragta nikaaxoodii uusan kuu bannaanayn, wixii ka soo haray ayaa loola jeedaa ajnebi. ajnebi marka ajnebi maxaa soo gelaya calaa hada tacriif? tacriifkan markaan nidhaha baabu nawaaqid ulwudu marka la joogo, oo waxaa dee ajnebinimada xagga weyse burinta un baa loola jeedaahe, waxaa soo gelaya haweeneyda markaas adigu aad qabtid. ilaa haweeneyda adigu aad qabtid markaad guursanaysay, guurkeedu xaaraam kaaba ahaynoo waadba qabtaaba, waadba guursatay.
marka saasay binisbati markii dhinaca nikaaxa la yidhaaho maadaama nikaaxeedii uu kuu bannaanaaday waa ajnebi aad kala ahaydeen oo weysada waa kaa burinaya naagta aad qabtid dadka qaaraa ku ishkaal geliya waxay u malayaan waxay yidhaahaan oo naagta aan qabo waaba maxramkayga see weyse iga jebine maxramka yacni wuxuu leeyahay abwaab baab walba maxramka meelaa loo fiiriya sax way islaanta markii laga fiiriyo dhinaca khalwada inaad la khaali noqonaysid inaad la safraysid in haweentaadii ay tahay dhinaca markii laga fiiriyo waa sax waa maxram laakiin markii laga fiiriyo baab nawaaqid alwudu weese ma jebisaa mise ma jebiso markii laga fiiriyo waxaa lagu daraa kuwa weysada jebiya ayaa lagu daray dhinaca weese jebinta markii la yidhaaho ilaa maxram waxaa la yidhaha baabu nawaaqid alwudu marka la joogo man xaruma nikaaxuhaa cala ta'biid waa qof nikaaxeedu uu ebedba uu xaaraamkaa yahay ayaa loola jeeda wallahu subxaanaه wa tacaala aclam